aniga Hargeysa laygama soo magacaabin shacabkayga ay doortay shacabkaygii baan u shaqaynayaa cod dheer iyo cod gaaban waan ku sheegayaa degmada Laascaanood mudane Cabdiraxiin Cali Ismaaciil ayaa saaka kormeer ku tagay xarumaha kala duwan ee dawladda ee degmada Laascaanood ay u horeyso dawladda hoose ee degmada Laascaanood saldhigga dhexe ay jeesha magaalada iyo sidoo kale xarunta dabdamiska halkaas oo ay dhamaantood gacanta ku hayaan ciidamo ka marqaata duqa degmada Laascaanood kuwaas oo ilaalinaya hantida shacabka loogu adeegay xarumahaas yaala geeska kale duqa degmada Laascaanood waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland kaas oo sheegay in xilkii laga qaaday duqa degmada waxa uu mayorku sheegay in shacabka degmada Laascaanood ay doorteen isla mar ahaantaasna haatan iyo wixii ka dambeeyay u shaqayn doono shacabkiisa oo qarinna doonin dhibaatooyinka soo gaaraya bulshada degmada Laascaanood oo xusay in maalintii lixaad ay duqeyn ku socoto duqa degmada Laascaanood oo xarunta dawladda hoose ee degmada kula hadlay warbaahinta qaybaheeda kala gadisan ayaa waxa uu ka hadlay arrimahaasi bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah awalan ilaahay baynu mahadnaqaynaa mahadlamaantii sugnaatay maanta oo ah maalin sabtiya 12 bishii 2023 anigoo ah duqa degmada Laascaanood waxaan kormeer ku maray xarumaha dawladda sida xarunta ciidanka dabdamiska xarunta dawladda hoose xabsiga weyn ee magaalada Laascaanood anigoo u kurgalaya sida ay xaaladoodu tahay waxaan uga mahad celinayaa mahad Ilaahay ka sukow ciidamada ilaalada waa xarumaha sida mas'uuliyadda ay mas'uuliyadda saga saareen xarumahoodii ay shaqadoodii u wadaan ay u ilaalinayaan waxaan beeninayaa warar baraha bulshada lagu baahiyay oo ah in xarumihii dawladda la bililqaystay waxaan leeyahay wararka waxa la wax ka jira ma jiraan xarumo walba ciidankii gacanta ku hayay baa ku haya waad aragtaan hadda waxaan dhex taaganahay xaruntii dawladda hoose wasiideediya ciidankeediina gacanta ku hayo waxaan u sheegayaa ciidanka joogaada xarunta dawladda hoose aan hor taaganahay inaad si laban laabtaan shaqada aad umada u haysaan idinku waxaad tihiin reer Laascaanood waxaadna u shaqaynaysaan reer Laascaanood cid kale aad u shaqaynayseen ma jirto qof kasta oo askari oo halka taagan waa inuu ogaado inuu isagu mulkiilaha yahay oo aad shaqadiina sidaad u haysateen aad u haysataan waana idinku bogaadinayaa boqolkiiba boqol baan idinku bogaadinayaa waxaan u sheegayaa shacab weynaha reer Laascaanood ee qiimaha iyo qaayaha badan leh inay midhmidhka tala xumaalaha ah ee isku dayaya xarumaha dawladda inuu farafareeyo inay gacan bira ku qabtaan xarumaha dawladda reer Laascaanood baa leh reer Laascaanood baana lagu shaqaynaya looguna shaqayn doonaa aad iyo aad baan idinku boorinayaa marka shaqada aad u haysaan dadkiina وإنه هندونا أنت أين النور إن شاء الله تعالى ودنكم هالسنتين وحنكلو دونا يا هالكنا كبينيو وسيرك وسارد أهرمها الدبدة السومالي لان أو يدي ماير كويس عسيلي وحن لا يا قد كلو عذاب يو محقو بين شاغ أنا هرجيسة لقى مصر مجعابين شعب كيجاي دورتي shacabkaygii baan u shaqaynayaa cod dheer iyo cod gaaban waan ku sheegayaa dhibaatada shacabkayga ku dhacda cod dheer iyo cod gaaban waan ku sheegayaa dhibaatada shacabkayga ku dhacda haddii ay ceeb noqotay oo ay qaadan waa ku noqotay muxuu maayirku dhibaatada Laascaanood uga hadlay haddana waa ka hadlaya waxaa duqeyntii sideedii u socotaa haddana maanta dagaalkii duqeyntii sideedii u socotaa waxa uu madfac ku dhacay isbitaalka la yiraahdo gargaar oo magaalada bartankeeda ah waxa ku nafwaayay hal nin
oo dhalinyaro ah oo kamid ah dhakhaatiirta isbitaalka nin kalena uu ku dhaawacmay.